soo dhawaada jaalayaal tiimka Beta Squad waxay soo sameeyeen challenge cusub oo ay ugu magac dareen yaa ugu caqli badan laba koox ayay u kala bixeen kooxda koowaad waa AJ Kenny iyo Sharky kooxda labaadna waa Chunks iyo Nico waxay ku tartamayaan ilaa 3 challenge oo kala duwan una badan kuwa maskax ah wareega koowaad waxay ku tartamayaan geography waxa meesha la keeni doona dad kala luuqad ah kadib hadal ay ka codsadeen ayay ku hadli doonaan kadibna waxay qariirada ka dooran doonaan wadanka ay u maleynayaan inuu qofkaas ka soo jeedo wareega labaad waa hingaad ama isbeel erey ayaa loo yeerin doonaa mid kasta oo iyaga ka mid ah kadibna waxaa laga rabaa inay isbeel gareeyaan wareega saddexaad waa maskax labada koox min hal qof ayay soo dirsanayaan kadibna laba box ayaa la hordhigayaa kadib midka fura wuxuu kan kale u sheegayaa waxa ku jira ama run ha ahaato ama been ha ahaato kadibna kan loo sheegay ayaa go'aansanaya inuu sanduuqiisa ka bedelanayo ama inuu u dhaafayo uu kiisa haysanayo tartamihii haysta boxka uu ku jiro numberka weyn ayaa guuleysan doona inta labada koox ay dadka isbarayaan Sharky wuxuu si hoos ugu dhawaaqaa help ama ay caawiya Chunks ayaana arkaya oo ku diraya kooxdiisa markay weydiiyaan wuxuu sheegayna wuu iska boojeeyaa wareega koowaad ayaa bilowday qofka ugu horeeya ayaana soo istaagay waxay ka codsadaan inuu luuqadiisa ku dhaho waxa uu gacanta ku hayo markuu intaas u sheegay labada kooxba waxay ka doodaan wadanka uu ka soo jeedi karo dood dheer kadib kooxda Nico waxay isku dayaan inay ninka mar kale weydiistaan inuu ku celiyo hadalkii uu hore u dhahay balse AJ iyo tiimkiisa ayaa ka diiday maadaama loo ogol yahay inay min hal su'aal weydiiyaan waxay weydiiyaan luuqadda aad ku hadasho wadamo kale miya idin la wadaaga maya ayuuna ku dhahaa waxay kaloo weydiiyaan wadankiina Yurub miyuu ku yaalaa haa ayuuna ugu jawaabay kadibna labada kooxba waxay u kacaan inay qariirada ka doortaan wadanka uu ka soo jeedo mid walba kan kale uu ka ilaashanayaa inuu ka ogaado wadanka uu dooranayo balse isku wadan ayay doorteen oo ah Turkey markay weydiiyaan inay saxeen wadankiisa haa ayuu ku dhahaa sidaas ayna ku helaan dhibcoodii ugu horeeyay ninka labaad markuu soo galay waxay ku dhahaan magacaaga iyo warbixintaada luuqadaada ku sheeg isla marka uu hadlaba way kala boodaan oo horey ayay ka fahmaan meesha uu ka soo jeedo Nigeria ayayna wada doorteen markay weydiiyeenna meesha uu ka soo jeedo Nigeria inay tahay ayuu u sheegay sidaas ayayna ku heleen dhibcoodii xigay maadaama si degdeg ah ay ku garteen wadanka uu ka soo jeedo Nico wuxuu soo jeediyaa inuu tiimkiisa ku darsado maadaama ay laba qof yihiin waa loo ogolaaday balse Chunks ayaa hoos ka hadlayay oo diidana ugu dambeeyna uu ogolaaday inuu ku soo biiro kooxda qofka saddexaad gabar ayay ahayd salaan ayay ku soo dhaweeyeen luuqadeeda ayayna ugu jawaabtay kadibna hordhac yar ayay siisay kadib waxay bilaabeen labada koox in dhaxdooda ay ku murmaan in gabadhan ay ka soo jeedo Nepal ama India Team Chunks waxay doorteen gabadhan inay ka soo jeedo Nepal halka AJ iyo kooxdiisa ay doorteen inay ka soo jeedo India markii la weydiiyayna waxay sheegtay inay ka soo jeedo Nepal waxaana dhibco dheeri ah helay kooxda Chunks wareegii koowaadna iyaga ayaa ku gacan sareeyay ciyaarta wareega labaad ayaa bilowday waxaana isbeelinka lagu bilaabay Sharky ereygii la weydiiyay si sax ah ayuu uga jawaabay Kenny ayaa ku xigay isna ereygii la weydiiyay wuu ka jawaabay AJ ayaa ku xigsaday isagana si la mid ah wuu saxay ereygii la weydiiyay kooxda kale Nico ayaa u bilaabay wuuna saxay ereygii la weydiiyay balse Chunks ereygii la weydiiyay wuu qalday mar kale Sharky ayaa la weydiiyay wuuna ka jawaabay Kennyna kama yareysan oo wuu saxay balse AJ markiisa isna wuu gafay Nico-na kama dambeyn isna wuu qalday Chunks markan wuu saxay markii saddexaad ayaa Sharky la weydiiyay isla sidii hore wuu saxay Kenny oo ku xigayna wuu qalday waana markiisa ugu horeysay uu qaldayo AJ oo la wacayna kama duwanaan mar labaad ayuu qalday Nico oo kooxda kale ahaa isna wuu qalday Chunks oo ugu dambeeyay ayaana saxay dhibcihii la shaqaystay isku dar labadii wareeg ee la soo dhaafay waxaa ku dhibc badnaaday AJ kooxdiisa wareega saddexaad ayaa markan bilaabanaya waxayna soo kala dirsadeen Sharky iyo Chunks Sharky ayaa horfuray boxkiisa maxaa ku jira markii la weydiiyayna waxba ayuu dhahay Chunks intuu qayliyay ayuu dhahay Sharky 9 sano ayaan aqaanaa marka uu hadlayo hadii uu hoos fiiriyo been ayuu sheegayaa kadibna wuxuu dhahaa waan kala bedelanaynaa qofkii numberka ugu jira ayaana guuleysanaya Chunks markuu furay dhibcihii ayuu ka helay sidaas ayuuna guusha ku qaatay waxaana tartankan sidan ku guuleystay kooxda Chunks fadlan haddii aad nagu xusubtahay YouTube-keena ku soo biir si muuqaalo noocan oo badan aan idinku soo gudbino muuqaalkana noo like garee mahadsanid